warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo maanta ka dhacay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho oo ah goob saxmad badan leh qaraxa oo inta badan jugtiisa laga maqlay xaafadaha Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid ismiidaamin ah kaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa waxa ay soo taraya Khasaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay isgoyska X control afgooye duleedka magaalada qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa waxa ku dhintay in ka badan 150 qof sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay Khasaraha ugu badan waxa uu gaaray dad shacab ah oo iskugu jiray arday jaamacadeed oo la socday gaari bas ah iyo kuwa kale oo qaraxa la kulmay agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dhaawacyada iyo meedadka la geeyay isbitaalkaasi kadib qaraxii maanta X control afgooye Dr. Maxamed Yuusuf ayaa xaqiijiyay in isbitaalka Madiina kaliya la geeyay dhimashada 73 qof iyo dhaawaca 52 kale kuwaas oo ay ku jiraan kuwa adulita sidoo kale agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa tilmaamay in isbitaalka uusan xamili karin tirada dhaawacyada la dhigay isla markaana loo baahan yahay caawinaad degdeg ah sidoo kale isbitaalada Digfeer Daarushifa iyo isbitaalo dhowr ah oo ku yaal caasimada Soomaaliya waxa la geeyay dhimasho iyo dhaawac fara badan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda hoose ayaa booqday dhaawacyada la geeyay isbitaalkaasi gudoomiye Umar Finisho gudaha isbitaalka kula hadlay warbaahinta ayaa ballan qaaday in dawladda dhaawacyada halista u qaadi doonto dalka dibadiisa duqa Muqdisho ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka shacabka ah inay u gurmadaan dadka ku waxyeeloobay qaraxii maanta ee ismiidaaminta ahaa wali waxa socda tiro koob ku aadan dadka ku dhintay qaraxan oo aad u fara badan wararka qaar ayaa sheegay in ku dhawaad 100 qof ay ku dhinteen qaraxan dhaawacana uu intaasi ka badan yahay dadkan ayaana ugu badan kuwa rayid ah ardayna ay ka mid yihiin ma jirtay ilaa haatan cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan oo ay geysatay Khasaraha ugu badan ma jirtay ilaa haatan cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan oo geystay khasaare aad u fara badan dadka dhintay sidoo kale waxa kamid ah 2 injineer oo Turki ah iyo 3 askari oo ilaalo u ahayd kuwaas oo la socday gaari nooca aan xabadaha karin Soomaalida oo taqaan proof oo maray halka uu qarxu ka dhacay wararka qaar ayaa sheegay in bartilmaameedka weerarku iyagu ahaa waxaana sidoo kale meesha ka agdhow xarun canshuuraha looga qaada gaadiidka iskaga kala goosha wadada xiriirisa Muqdisho afgooye gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale waxa la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaas oo goobta ku sugnaa geesta kale wasiirkii hore ee amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in 94 qof ay ku dhinteen qaraxii X control wasiirkii hore ee amniga gudaha Cabdirasaaq Umar Maxamed haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska X control afgooye magaalada Muqdisho xildhibaanka oo qoraal kooban soo dhigay barta fariimaha gaagaaban ee Twitterka ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 90 qof oo u badan rayid wasiirkii hore ee amniga ayaa sidoo kale kala saaray tirada dadka dhintay waxa uu tilmaamay in 73 qof ay ahaayeen shacab halka 17 ay ka tirsanaayeen ciidanka booliska sidoo kale wuxuu intaas ku daray in qaraxii maanta ay ku dhinteen la 4 ajaanib ah in kastuu sheegin dalalka ay ka soo kala jeedaan madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murtashiq Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay qaraxii maanta dadka badan ay ku dhinteen waxayna Allah uga baryeen inta dhaawaca in Allah bogsiyo inta dhimatan Allah u naxariisto dhinaca kale Kheyre ayaa ku dhawaaqay guddiga gurmadka qaraxii X control afgooye ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dubaridka gurmadka loo sameeyo dadka waxyeelada ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho ra'iisul wasaaraha ugu horeyn uga tacsiyadeeyay helada dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarka ayaa sheegay guddiga uu magacaabay ay ka shaqeynayaan isku dubaridka gurmadka loo fidinayo dhaawacyada iyo gargaaridda heladii ay ka baxeen Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawimaad iyo daryeel dalka dibadiisa ah wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan gurmadka socda iyo dagaalka looga soo horjeedo